fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed Hiba Maxamed Hiba Nuura ayaa sheegtay inay go'aansatay in wejiga alle dartii ay uga harto fanka iyo musiga. Hiba Nuura waxa ay sheegtay in muddo ay ku soo tallamaysay sidii ay u joojin lahayd musiga oo ay sheegtay inaanay ahayn wax wanaagsan sida culimmadu ay sheegeen. Hiba Maxamed ayaan goor dhaway telefonka magaalada Minneapolis oo ay degan tahay kula xiriiray oo aan ka waraystay go'aankan waxaana marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyay. farxaano aad iyo aad u mahadsan tahay arrintan horta muddo igu soo jirtay mar qura iguma soo boodin muddo ayaa maaragtay aan waxoogaa ka fakeray wax aad u wanaagsanna waxay la noqotay maadaama culimadii isku raacday inuu yahay fanku wax fiican oo suugaantu wax fiican tahay laakiin muusiga marka lagu daro aanay fiicnayn marka aniguna waxaan uga fakeray inaan maaragtay wixii aan fiicnayn aan xagga ilaahay raalli lagaga ahayn berigii aan fanka galay waan yaraa intii aan dembigaygaba la qorin bay ahayd intii dambana dee way soo jiitimaysayo maalin qura go-aan lama gaadheen markii ilaahay qadaro unbaa lagu dhawaaqaa markaa saas iga soo gooday. marka go'aanku muddaad ku tallamaysay laakiin culimadiiba ayaa kugu sii dhiirigeliyey. aad iyo aad diinteennaba sidaa odhanaysa ilaa aabbahay laga bilaabo ayaa muusigu ma fiicna in lagu heeso aabbahay bay igu dhiirin jiray laakiin dhalinyaro iska waalane waxaan odhan jiray iska dhaaf heesta macaan haddana qaad haddana adigu way socotay hadda waxaan gaadhay gobogobadii inaanan muusig ku heesin laakiin wixii suugaana ee wadankayga waxu taraya ee diintayda waxu taraya ee dadkayga waxu taraya waan odhanayaa waanan alifaa kuwa la alifay kalena waan qaadi karaa laakiin kuma heesayo. marka micnaheedu inaad kala saartaan wanaagsanaan lahayd Hibo muusigii baad meesha ka saartay laakiin heestii caadiga ahayd jacaylka ahayd ama heesahagii la yaqaanay caanka ahaa iyagoo sidoodii luuqdoodii waad qaadi kartaa. maya iyagoo suugaan un baan odhan karaa. markaa suugaantu maxay noqonaysaa iyadoo dhiirigelina oo aan jacaylkii ku jirin noo fasir. iyagoo dhiirigelin oon jacaylka ku jirin. haye dad badan oo taageerayaashaadii waxa laga yaabaa marka inay si kale u qaataan Hibo markii masrixii fanka laga waayo oo ay ku tabi doonaan. waxba maa kumayaal kalaa jooga oo kaalintayda buuxinaya qof kastabana anigu waxaan jeclaan lahaa in la iska daayo muusikada in lagu heeso laakiin dee dadkii yeeli maayaan. marka ka waran go'aankan muddaad ku tallamaysay laakiin Hibo dadka qaarkii inay si kale u fahmaan baa laga yaabaa oo yidhaahdaan dee fankii Soomaaliya burburkii ku yimid intii dagaalada wadankii laga soo qaxay markaad eegto dhaqdhaqaaq ma laha marka haddii aanay wax soo saar iyo alifaad cusub aanay jirin Hibo sidaasay uga xuubsiibatay oo uga luga baxday maahee sidaa inay u dhigaan qaarkood. maya u dhigi maayaan because mar walba haddii uu jiro qof dhaqaale ku soo galo dadka ugu fiican baan ku jiraa cid kasta oo maaragtay anaga fanka inaan kala qayb galo ii doorataana kaalinta u sarraysa ii joojisaa maaha sidaa waxa weeyaan wejiga ilaahay baan uga hadhay anugu in ilaahay intii horena iga cafiyo. marka intan dambe hadda aad ogoshahay dhiirigelinta bal tusaale naga sii maxay noqon doontaa oo haddaad wax alifayso ama aad qaadayso muusiga iyadoo ka reeban ah. waxaan dhiirigelinayaa waxa weeyaan waxyaalaha wadaniga ah marar badan oo kale maanta waa waxaan ka cudur daaranayaa 2 beri oo aniga xafladii la ii sameeyey ummadda Soomaalidu igu ducaynaysay ayaan 5 qaaradoodba la hadlayay telefoon ilaa aan deganahay waa codkaygu u daalan yahay mar kale intaad igu soo noqoto inaan suugaanta sida aan jecelahay u sheego oo dhaan noocaasaan jecelahay inaan u sheego. waan gartay waan ka xumahay adoo daalan inaan kula hadlayo laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Hibo muddo intee laag baad ku soo jirtay fanka. anigu fanka anigoo caruuraan bilaabay 1967 bilaabay. waqtigaa fanka aad ku soo jirtay maxaa kuugu fiicnaa oo aad ka xusi kartaa. wallaahi marxalado badan oo fiican baan ka xusi karaa dhiirigelinta wadankayga oon goobo badan ka dhiirigeliyey oo aan shacbiga kaga farxiyey sida ama kaga qiiraysiiyey ayaan aad u jecelahay goobahaasaan aad u jecelahay. hadalaad ku soo gunaanadi lahayd ugu dambayntii Hiba Maxamed. hadalkaan ku soo gunaanadayaa waxa weeye
anigu inaanan dhiirinaynin heesahayga in la saaro in lagu raaxaysta iyo in la qaadatoona aniguna aan iska daayay. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Hibe Maxamed.